laxamiista cabdikariin faarax qaari oo ku magac dheeraa cabdikariin jiir waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1943 Hobyo ayuu ku soo barbaaray kuna soo qaatay dugsiga hoose dhexe barbaarkiisii iyo waxbarashadiisii waxa uu garab socday hibafaneed wuxuuna yaraantiisii heelada ka qaadi jiray xafladaha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan sanadkii 1960kii oo ay Soomaaliya xurriyadda qaadatay ayuu Muqdisho soo galay waxa uu yiri aniga oo yar ayaan Hobyo ka heesi jiray qof iga cod fiican inuu jiro oo ma malayn jirin Muqdisho ayaan imid aniga oo jacayl xoogan u qaba fanka idaacada radio Muqdisho ayaa tartan faneed laga ilaamiyay sanadkii 1963 inaan ka qayb galay ayaan go'aansaday Faaduma Dalays ayaa igeysay radio Muqdisho heela la yaab la yiraahdo ayaan ka soo duubay subaxii ayaa heesaha la duubi jiray galabkiina waa la soo deyn jiray galabtii ayaan timajare u tagay waxa radio Muqdisho kolka laga soo daayay heeladii anigu markaas waan faraxsanahay oo waxaan islaahay ku raaxayso codkaaga markii heestii bilaabatay ayaa waxa ay ugu bilaabay ninkii timaha ii jiriyay ninku ma oga inaan aniga ahay ee qofkaas heesaya ayuu caayiyaa waan yaabay oo waxaan isri meel kasta ma sidan ayaa lagaaga caynaya markaas ayaan go'aan ku gaaray inaan dib dambe u heesin waxaan ku fikiray inaan codkaygii xumaa cod macaan ku sameeyo oo aan la xamiistan noqdo 6 sano ayay igu qaadatay inaan laxan sameeyo barashada codka iyo laxanka ayuu bogaadiyay cabdikariin jiir sanadkii 1968 ayuu la xameeyay heestii ugu horeysay waana heesta sabab kale hamoodin ee caanka ku tahay hiba nuura balse markii uu horeysay uu qaaday maxamed mooge heestan waxa ay ka dhalatay sheeko isla markaana cabdikariin jiir ku dhacday gabar sahre la yiraahdo ayuu jacayl u qaaday kadibna waxa uu tagay abwaan maxamed cali kaariye oo uga sheekeeyay jacaylka hayo waxa uuna ka codsaday inuu hees u sameeyo isaga ayaana laxan ka sameeyay maxamed mooge ayaan heestii xifdisiyay inta kabankii qaatay ayuu ku heesay dareen gaar ah ayaa i galay waxaana xusuustay maalintii ninkii uu yaacay heestii ayaa kacday magaaladii oo socoto ayaa i soo raasatay waxaana ku dhiiraday inaan mar labaad sameeyo hadraawi ayaa markii uu heesta dhageystay igu yiri isbedel ayaad codkaagii ku samaysay heestaas iyo heesta rako oo uu jiir la xameeyay maxamed cali kaariye uu ka alifay jacaylkii jiir ayaa u furay badweynta fanka uu ku la xameeyay in ka badan 120 hees oo ay ka mid yihiin heesta sabab kale cabaaryaha laalay dhoof caashaq baladweyn naftu doqonsana siraaday daalo aragtideeda iyo jacayl dhiigma lagu qoray sida uu xaqiijiyay abwaan barre fiidow cabdikariin jiir waa qofka ugu badan ee la xameeyay heesaha hadraawi oo ay saaxiibo gaar ahaayeen cabdikariin jiir waxa uu sidoo kale la xameeyay heesaha ku jira silsilada siinley oo inta badan lagu weerarayo xukunkii askarta ee uu hogaanka u hayay maxamed siyaad barre kana koobnayd 29 maanso oo ay alifeen 15 abwaan oo ay ka mid ahaayeen hadraawi cabdiqays gaariye xaaji aadan axmed afqalooc iyo saciid saalax sanadkii 1970kiina cabdikariin jiir waxa uu gacan libaax la ka qaatay aasaaskii kooxda iftiin oo ay lahayd wasaaradda waxbarashada oo uu tiirarkeeda ka mid ahaa balse kuma koobnayn kooxda iftiin oo uu ka tirsanaa ee waxa uu la xameyn jiray heesaha kooxaha kale sida kooxda Waabari oo raad xoogan ku lahaa